gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeyte Ismaan ayaa xariga ka jaray xarunta wasaaradda gargaarka iyo maareynta mas'uuliyiinka dowlad goboleedka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan iyo qalab casri ah oo loogu talagalay saadaalinta qataraha dabiiciga ah sida xajmiga biyaha webiga Shabeelle, roobabka, daruuraha, heerkulka iyo dabaylaha. wasiiro, xildhibaano, maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Save the Children ayaa ka qayb galay munaasabadda xariga jarka. maxamed cadi ladhiif ku-xigeenka hay'adda Save the Children ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay mashruucan muhiimadda uu leeyahay. sida hore loo sheegay magaalada Beledweyne waa magaalo had iyo jeer u nugul fatahaadaha mararka qaybtoodna waxaa dhib ahaan jirtay in si joogto ah loola socdo levelka biyuhu marayaan iyo xawaarahooda si looga digtoonaado. Systemkan iyo gurigan iyo qalabkan aynu maanta daafuraynahay wuxuu wax weyn ka qaadan doonaa insha Allah tacaala in si joogto ah online loogula socdo xogta webiga biyaha maraya levelkiisa isla markaasna go'aamo wanaagsan oo waxtar u noqon doona bulshada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabelle. wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdimahad Qoorgaab ayaa ka mahad celiyay dhismahani iyo qalabka la keenay xarunta wasaaradda ee magaalada Beledweyne. aniga ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarka iyo maareynta mas'uuliyiinka dowladda Hirshabelle marka hore maanta waxaan daahfuraynaa xafiis inooga dhisay ama wasaaradda gargaarka looga dhisay magaalada Beledweyne. xafiiskan oo runtii ah xafiis laf dhabar u ah wasaaradda. xafiiskan waxaan in badan ku sheegaa u baahnaynay ama ay dawladdu u baahneeday si aad iyo aad ayuu ugu baahnaa. xafiiskan waxaan uga mahad celinayaa dhismihiisa, qalabayntiisa Save the Children oo runtii aad iyo aad ku sheegaa inta noogu dhistay noogu qalabaysay. fanka waxa bixiyay maxaa la yiraahdaa dawladda UK. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan ayaa sheegay in qalabkan wax badan ka bedeli doono saadaalinta cimilada isla markaana horey gobolka Hiiraan aysan ugu jirin qalab lagu saadaaliyo cimilada iyo fatahaadaha. waxaan rabaa halkan hadda aan joogno aqalkan ama xafiiskan ama gurigan magaciisa doonaa la yiraahdo waxaa dhisay hay'adda Save the Children waxaana loo dhisay wasaaradda gargaarka. dabcan haddaan qaldanayna fanka waxa bixiyay dawladda calankeedu halkan ka muuqda ee UK. dhismaha qalabaynta iyo hirgelinta hanaanka casriga ee wax saadaaliya ayaa waxa fulinaya hay'adda Save waxaana maalgeliyay dawladda Ingiriiska. Cabdishakuur Ismaan Ali, warbaahinta qaranka Beledweyne.